qalbiga aynu naqaano xanuunada ku dhaca badh aadanaha daweeya oo qofkii wadna xanuun ku dhaco waxaynu dhahnaa dhakhtarka u tag dhakhtarka markaa u daweeya laakiin waxaa jira xanuunno ka adag kuwa dhakhaatiirtu daweyso oo qur-aanka iyo xadiidkuba ay tilmaamayaan inay qalbiga ku dhacaan dadka inta iska daweysaana ay yar yihiin xanuunnada kale ee qalbiga ama wadnaha ku dhaca markiiba dhakhtarkaa loola cararaa qofka waa la daweeyaa laakiin xanuunnadan sharcigu inoo tilmaamayo waxaa yar dadkaba inta ku tanabuhda ama daymoota ee garata inuu xanuunkaa qabo ee raba inuu iska daweeyo waa xanuun runtii ama waa xanuunno dhib adduuniya mid aakhiraba leh waa xanuunka uu tilmaamayo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam walaa tukhzinii yowma yubcahuun yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim nebi ibraahim rabbi buu barya subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy ilaahu hay hoojinin oo hay dullaynin maalinta dadka la soo saaro maalinta aan xoolo iyo carruur iyo wixii adduunka la tirsan jiray lagu tiirsanaan jiray aanay waxba taraynin yacnii bini aadamku adduunka inta badan maalkiisa iyo wiilashiisa buu ku tiirsada uu dareemaa inay labaduba wax ka dhicin kara yihiin nebi ibraahim wuxuu leeyahy ilaahu maalinta aan wiil iyo walaal iyo xoolatoona wax taraynin ilaa man ata allaha biqalbin saliim qof ula yimaada alle mooyaane qalbi caafimaad qaba qalbi nabad qaba saliim mufasiriinta badh ayaa waxay dhahaan saliimun min ashirk gaalnimo ka caafimaad qaba mufasiriinta badh baa idhaahdaa saliimun min ashak shaki ka caafimaad qaba oo yaqiinsan rabbi iyo la kulankii janno iyo naar iyo jiritaankeed nebi maxamed inuu xaq yahay yaqiintaasi haysta mufasiriinta badh baa yidhaahdaa saliimun min alghilli walaxaqaad uurxumo iyo xiqdi ka caafimaad qaba mufasiriinta badh baa yidhaahdaa saliimun min alkibr isla weyni laa yadkhulu aljanna man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min kibr isla weyni ka nabad qaba mufasiriinta badh baa yidhaahdaa saliim luqada carbeed waxay ka mid tahay erayada cagsigaba loo adeegsado tafaa'ulan bimacnaa ladiiq oo waa kii saxaabigii abi saciid alkhudri iyo saxaabadii la socotay markii ay soo mareen reerka ee la marti soori waayey ee dabeetana odaygii u weynaa bahalku qaniinay markay u yimaadeen waxay dhahdeen ina sayidu haadi alwaadi saliim bay yidhaahdeen ina sayidu haadi alwaadi saliim bimacnaa ladiiq tafaa'ulan waa sida indhoolaa basiirka loo yidhaahdo basiirku waa mid indhaqaba macnaheedu saliimka markaa waxaa looga jeedaba ilaa man ata allaha biqalbin saliim ay ladiiq min makhaafati illaahi caza wajal وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى مفسرين تبربا إلى هذا السليم أي لم يصب بالقسوة ثم قست قلوبهم ولدي الله تلمامي مفسرين تبربا إلى هذا السليم من الران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون mufasiriinta badh baa yidhaahda erayo ku dhodhow erayadaasi laakiin markaynu soo duuduubno nebi ibraahim wuxuu yidhi ilaa man ata allaha biqalbin saliim qof ilaahay ula yimaado qalbi caafimaad qaba mooyaane wixii rabbi diidoo dhan ka caafimaad qaba gaalnimo iyo wixii ka farcama ka caafimaad qaba